السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة إيو قصة هرله أو كد عضي دلك كويت. قصة نوحي كد عضي مودي فاضل دياب أو أدلت دلك السعودية. مودي وحا قرسدي نين كويديانا وقتي قصة أي قد عيسانا مودي وحا إيجرتي لحظا سنة. مودي وحي ninka kuweydiyaanka ay u dhashay wiil iyo gabadh waqtiga ay qisada ku dhacaysana waxa la socotay gabadheeda oo lagu magacaabo Hadiil. Moodi Fadal Diab caruurteeda markay u qaangaareen oo ay u weynaadeen waxa u shaqeyn jiray nin Masri ah oo u ahaa darawal u kaxeyn jiray gaariga. magaciisa waxa la yiraahdaa Cabditawaab Said. muddo dhowr iyo 10 sano ayuu reerka u shaqeynayay ninkaas lagu magacaabo Cabditawaab. Moodi Fadal Diab waxa ay marar badan ay caawisay ninka markaasi darawalka u ahaa oo u shaqeyn jiray lagu magacaabo Cabditawaab. xitaa waxa jirta mar xaaskiisi oo ay xanuunsanayd qaliin ay u baahnayd maamadana ay u asxaan fashay. Cabditawaab haddaba wuxuu ahaa nin muddo fara badan Kuwait ka shaqeynayay reerkana wanaag badan ay u sameyn jireen una sameeyeen oo ay aaminsan yihiin wanaagna dhaxmaray labadoodaba. alxaasil yaan hadalka idinku daalin waxa ka dhaxeeyay xiriir aad u wanaagsan. haddaba Moodi iyo gabadheeda Hadiil waxa ay ku fikireen ama ay go'aansadeen dalka Masar in ay ka iibsadaan guri. sidayna wada ognahay dalka Masar guriyahooda waa raqiis marka loo eego qaliijka iyo dhulalkaas kala Carabta waana meel loo dalxiis tago. haddaba qisadan waxay dhacday 2015. Cabditawaab ayaa wuxuu yiri dhulkaasi waa dhulkayga aniga ayaana arrinkan dhameynayo guri wanaagsanna aniga ayaa idii haya. asaga ayaa ku dhiirigeliyay oo juhdi ku bixiyay in maamada iyo gabadheeda in uu kaxeeyo Masarna uu geeyo. haddaba Moodi iyo gabadheeda Hadiil waxay go'aan gaareen ama ay go'aansadeen in wiilkooda ay kaga soo tagaan gurigii Kuwait asaga inuu Kuwait joogo ayagana ay aadaan Masar oo ay raacaan darawalkan ay aamineen oo kalsoonida ay ku qabaan muddo dhowr iyo 10 sano u shaqeynayay isagana uu garanayo guriga markaasi la iibin lahaa ama ay u baahnayd Moodi. haddaba Moodi iyo gabadheeda Hadiil waxay soo raaceen darawalka waxayna ku soo degeen dalka Masar iyagoo markaasi guriga raadinaya. Cabditawaab wuxuu soo jeediyay beer weyn oo ku taalo magaalada banaankeeda oo ay leeyihiin gabadha uu qabo walaalaheeda in beertaasi haddii la maalgeliyo ay ku shirkoobi karaan faa'iido badanna ay ugu soo baxayso. qorshahaas ayuu wuxuu u soo jeediyay maamadii Moodi la dhaxayay iyo gabadheeda Hadiil. wuxuu ugu daray beerta waxa ku taala buu yiri ceel baa ku yaalo ceelkaasna wuxuu ahaa ceel aad u dheer waxaana loogu talagalay in lagu waraabiyo beerta. waan jeclaysan lahaa buu yiri in beertaas shirka aan ku noqono waana aaminsanahay buu yiri in idinkana aad ka hantinaysaan anagana aan ka hantinayno. fikradaas haddaad igu raaci lahaydeen aad baan u jeclaan lahaa buu yiri Cabditawaab. haddaba Moodi arrintii aad ayay ugu faraxday gabadheeda Hadiilna way ku faraxday. haddaba ninka la leeyahay Cabditawaab wuxuu yiri bal inaad ku qanacdaan waan arkeena waa inaan tagnaa buu yiri beerta oo aan aadnaa idin soo tusaa waa muhiim inaad aragtaan beertaas. haddaba Moodi waxay tiri waan ogolahay inaan dhaqaajiyo. haddaba way soo dhaqaaqeen waxayna ka soo tageen Qaahira waxayna soo aadeen ama ay ku soo degeen gobol kale magaciisa la yiraahdo Muxaafadad Al-Minya. haddaba waxay yimaadeen beertii xilliga ay yimaadeenna waxay ahayd xilli markaasi maqriba ay qoraxduna ay sii dhacayso.
beerta ayaa waxay ahayd beer cidlo ah aanan markaas waxba ka baxayn. beerta waxaa ku dhex yaalay hal guri oo markaasi qabyo ah, balse cidna aanan degnayn, cidna aanan u dhoweyn, weliba meesha ay tahay meel cabsi ah. haddaba gabadhii yareed oo ay dhashay muudi lagu magacaabo Hadiil ayaa waxay tiri, aniga waan daalanahay, haddii la heli lahaa qol yar oo aan ku sii nasto waan jeclaysan lahaa. Cabditabaab ayaa wuxuu yidhi, haa waa la helayaa. wuxuu keenay qol yar markaasi hal sariir ay dhex taalo. Hadiil ayaa waxa ay muujisay cabsi aad u fara badan. Hadiil waxay gacanta ku haysay mobaylkii la oran jiray Blackberry oo markaas ay isticmaalaysay, waxayna kula sheekeysanaysay qadka ama internetka saaxiibadeeda markaasi ah gabdho. waxayna ku lahayd ama ay u diraysay qoraaladan aad aragtaan: iga warhaya, meeshana la keenay waa meel cabsi badan. meeshan waxay u eg tahay meeshii Raya iyo Skiina oo ay dadka ku leyn jireen. Hadiil ayaa waxay tiri, haddaad i weysaan ama aadna weysaan la xiriira safaaradda, waxayna u gudbisay halka ay joogaan ama locationka. haddaba saacado kadib, gabadha la leeyahay Hadiil markay weyday hooyadeeda iyo darawalkii soo noqon waayay, ayaa ugu dambeyn waxaa albaabka ka soo galay Cabditabaab. Hadiil ayaa waxaa kula soo booday, aaway hooyaday kulama socotee. markaasuu ninka la leeyahay Cabditabaab wuxuu yidhi, way imaanaysaa, bal aan ka warsugno wax yar. saacad ka badan ayaa la sugay, way imaan weyday maamada. ninka la leeyahay Cabditabaab ayaa gabadha waxay ku tiri, aaway hooyaday, oo ay ku celcelisay. Cabditabaab ayaa wuxuu ugu jawaabay, inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. runtaan kuu sheegayaa buu yidhi, hooyo anagoo joogno buu yidhi beerta aan aad iyo aad ugu xiise qabnay barnaamijkan, anagoo sheekaysanayno, farxaddana ay tahay farxad aan la qiyaasi karin, ayaa hooyo iyadoo fiirinaysa buu yidhi ceelka ayay madax ugu dhacday buu yidhi. dadaal fara badan waa muujiyey in aan ka soo saaro ceelka, balse ceelka ma ahan ceel wax laga soo saari karo, waa ceel aad u dheer aan innaba la gaari karin. maamadana waan badbaadin waaye, ceelka ayay ku dhacday, wayna dhimatay. xaajiyadda allah u naxariisto. Hadiil shakigii ay qabtay, cabsidii ay qabtay way ku soo baxeen. way aaminsaneed ayada in la dhibaateyn doono, way aaminsaneed hooyadeeda in la dhibaateyn doono. alxaasil, ninka la leeyahay Cabditabaab ayaa gabadhii markaasi wuxuu yidhi, waxay ii soo qaadatay mindi, balse sheekada sidaas ma ahan. sawirkii u dambeeyey oo gabadha markay asxaabteeda ay kula hadlaysay masaajka, waxaa ag yaalay bahasha loo yaqaano biinsada oo markaasi korontada loo isticmaalo. bahashaas ayuu dhabarka ka geliyey, kadibna mindidii intuu soo qaatay ayuu 4 jeer ku celceliyey ilaa ay markaasi gabadha la leeyahay Hadiil nafteeda ay halka ku weyso. maxaa dhacay? ma intaasa? maya, aynu ku socono sheekada, way socotaa. gabadhii Hadiil ahayd ayuu soo qaaday oo dusha ku soo qaaday, wuxuuna ku riday isla ceelkii uu ku ridayey maamada. isla ceelkaas ayuu gabadhii Hadiilna uu ku riday. dadka Cabditabaab markaasi caawinayay ama xaaskiisa wiilka la dhashay, waxaa sheekada markaasi ku cadeen in ay hore ula joogeen, ay ahaayeen dadkii markaasi beerta tusayey oo maamadana soo dilay, gabadhana markaasi garabna ku siiyey dilka, ama inay hadda yimaadeen. aynu ku socono sheekada. waxaa la bedelay ranjiga qolka oo loo ekeysiiyey meel nadiif ah, dhiiggiina halkaas ayaa lagu baabi'iyey. Cabditabaab wuxuu sameeyey lacag yar markaasi ee maamada iyo gabadheeda ay wateen ayuu gacanta ku duubtay ama markaasi uu qaatay. waxay kale ay markaasi la sidii karo waa cadeena, wuxuu ku riday isla ceelkii, isagoo markaas ceelkiina uu daboolay, guud ahaanna ay ku shubeen ciid aad u fara badan iyo dhagaxyo.
lacagta uu qaadanaya waxay ahayd oo aan horey kaga soo ilaaway waa lacag marka hore ay ku soo heshiiyeen in bar ay bixiyaan barka kalena ay bixiyaan marka ay beerta ka helaan. cabditawaab markii la maxkamadeynayay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa aniga reerka ma dili lahayn dhibaatana ma gaarsiin lahayn haddii lacagta inta aan sheegtay oo beerta waa lagu rabaana iraahday hadday gacanta ii gelin lahaayeen aniga waa la goosan lahaa oo waa dhici lahaa buu yidhi naftoodana ma dhibaateeyeen buu yidhi. cadadda lacagta ayaa waxay ahayd 960,000 oo lacagta ganiga markaas ah Masar. 61,000 way u dhigantaa markii loo sarifo dollar ahaan ma ahan lacag loo dili karo naf bil aadan ah. cabditawaab xaaskiisa waxaa la dhashay sidaan hore idinku sheegay 2 wiil. labadaasi wiil la dhashay iyo cabditawaab waxay isku fahmi waayeen lacagta. mid ka mid ah ayaa markuu dareemay lacagtan inta uu rabay in uu ka helin wuxuu u tagay ama aaday saldhigga booliska una gudbiyay in dhibaato ama dil uu ka dhacay meesha ay markaas ay ku sugan yihiin ama beertooda una geystay ninka la leeyahay cabditawaab. ciidankii ayaa waxay ka soo dhaqaaqeen halka ay ku sugnaayeen ama saldhigga oo ay soo aadeen halkii markaas uu joogay cabditawaab. sidii ayaa waxaa lagu soo qabtay cabditawaab iyo xaaskiisa iyo midkii soo wargeliyay iyo kii kalaba. maxaa yeelay waxaa lagu haysta xaaskiisa waxay tahay iyo wiilashan kale waxay sameeyeen dhiigii ayay astureen way ku garab siiyeen dilkiina way la fuliyeen. halkii ayaa markaasi lagu maxkamadeeyay kuligoodaba ayagoo lagu kala xukumay. ninka la leeyahay cabditawaab waxaa lagu xukumay dil. xaaskiisa iyo 2 wiil la dhashana waxaa lagu xukumay xabsi daayin. waa qiso cajiib badan. waxaan idin leeyahay dhammaan asxaabta qaaliga saara subscribe like dhaha share dhaha comment. waad mahadsantihiin dhammaan waa anigoo ah Maxamed Xasan Diinle.